إن عدوا حولي بطة كوكرة بطة أنت اللي هذا إسلامي وحول ما جيسان شركة ضينا وإيمك هضلي هل كلا تكور وسيهضي تاجي بقرو لقى كوكرنا ما هي كتشوش تتكعد على هذا odayaashan iyo waxgaradkan oo kulan warbaahineed ku qabtay magaalada Berbera ayaa waxay eedeymo u jeediyeen maayirka degmada Berbera iyo sidoo kale shakhsiyaad kale waxayna sheegeen inay hortaagan yihiin shirkadda gaadiidka Al Rayyan taasi oo ka shaqeysa gudaha magaalada Berbera waxaana xukuumadda Soomaaliland ay ugu baaqeen in arrintaasi ay si degdeg ah wax uga qabato shirkadda Rayyan waxaan sheegaynaa leenahay Berberi ma aha meel dadka lagu kala qabiyaaladeeyo Berbera waa loo wada dhashay dadka reer deegaanka Berbera waa hooyadii dalka waa xadaaradii dalka haddii Berbera qabiyaalad maamulkeedii iyo maayirkeedii ka bilaabo kow qabiyaalad ku hadlo ummadii ku kala soocayo shirkadihii waxa weeye ceeb tii ugu weyneed weeye waxaan soo jeedin waxaan kula talinaynaa maayirka inuu dadka oday u noqdo inuu magaalada ku soo celiyo Berbera sideedii iyo nidaamkeedii waxaan ka hadlayaa arrinkan shirkaddan Rayyan ee lagu meereysanayo inaa dhaga carmo u soo dhigtayba show shantaas sanaba beerkun buu soo hayay maanta buu sacdeeyay waxaan ku leeyahay dhaga carmo habariyoonisna mas'uul kama tiid Musa Cabdullah mas'uul kama tiid teen Musa Cabdullah baa soo Berbera degan ana nin Musa Cabdullah oo Berbera degan baan nin waliba meeshiisu buu degan nin ka wakiil ka waa habariyoonisna wakiil kama tiid oo shan sanaba beer deganaysa show badda ku dara wuxuu yar shirkadana anaga leh deegaan waanuna sharcina weynaada sharcina way ku joogtaa ma garat waana shirkad laga wada ganacsanayo Ciise Muuse iyo Musa Cabdullah iyo cid wali abriyo soo dhimi ay ku jirtay wax qof qori leeyahay ma ahayn tarnaashka laga wada cabeeyahay kuwana intii dhowtaa soo sameeyay liisaka waxay ku jireen shirkadda ka mid ahaayeen afarta xaggan soo cararay soo yiriideen idka yiriyo ka saarayo liiska soo sameeyay adaam jaxaabinay imkan ana ka mudiira baati shirkadii Akram marka waxa noo cadaatay inuu adigu muxuu qodaysay marka dhib ma leh waliba calafkiisu qaaday anaguna ma ogolin shirkadayada hadda doonaysa leedahay ku soo biira baadigi lahaayeen ku soo biiraan adigu fooqaaga inta soo rarto fudheelkayga soo dul saar alo qor jaafudula dakada ka saaro marka adigu meelaha soo wareeg ana labadaba nisay taasoo kale ka dhigantay in laga carbo sheekadaad ku hadlaysa in عدوا حولي بطة كوكرة بطة أنت اللي هذا إسلامي وحول ما جيسان شركة ضينا أفلقادها بطة كوكرة بود مرخات ما يلاقي وعقول يا عبد الشكور نبات شري بقرها نب كلامه هاي نحولها تذكر أيو بريدة كجوسن شري وأنتي تنبه أيه يدهدين بقر كانوا أنا بريدة النوتة nin laga baqaabo habay dhacdeen loo badheedin nin baa la soo balabay markuu yiri maxaadeen ayuu yiri boqorow baridii warintiina kale waxa taadaan buu yiri ku diidnay markay oran waayeen buu yiri boqorow baridii la gaan kugu daray kooran meena maanta anagu kuwa imika hadlay ee halkan aad ka ururusay haday taageen boqorow la gaan kugu darnay ma hay ka jooji dadka cadaalad wax deegaannimo lagu helayo oo Berbera ah oo ka sheekeynaysa waada lumiyay dhalinyartii Berbera waa kuwaas oo way joogan xuquuqii furiis oo lagu lahaa meel walba lagu lahaa cid lumisa way dadka maanta deegaannimo cid ku riixi kara shirkaddan Rayyan la yiraahdaa waxay diyaar u tahay sharciyadii wasaaradda iyo kii deegaanka labadiiba way haystaa waxaan lagu maqaalaa oo arrinkeeda ku haynaa in 3 jeer maayirka ay ka wada fadhiisteen odayaal xagga shirkadda ka socda iyo mas'uuliyiinta shirkadda iyo maayirku markii ugu dambeysay wuxuu yiri basaska dekada ku gura anagu meel u baxaynee deegaanna maaha deegaannimada ka bilaabi maysa shirkadda Rayyan la yiraahdaa deegaan mas'uul kasto Ciise Muuse isaga lumiyay halkanna Muuse bixi calaanta ku dhacaysay gobolada iyo degmooyinka meel walba kaga dhacaysa waxa weeye qonsuliyadda gaarka ah oo xidhay maayirada wuxuu ka dhigay dukaamo la leeyahay kawsalkii kale la soo baxay awood kuma leh lama xisaabtamo maayirada kii gabiilay baan ogeey 8 maalin wax la xidhibaan markii la soo hadal qaaday leeyahay fadhiga hal qab marka waa dukaamo uu sameeyay Muuse bixiye doorashooyinka uu qabanaa anigu waxa leeyahay dadweynaha Soomaaliland waa qasaare waxa la leeyahay waxay ku fadhiyaan mid too maayir magacaabaa dhaama halkan waxaan ka hadlaynaa shirkaddan Rayyan ilaahay baan ku dhaartay habeenkii xalay inaan ka seexan gobolkaan ku noolahay arrinkaasi nacamtii dhagaxumo nacamtii iyadoo oo marka horeba gobolku uu la ildaraa aafooyinka aad u geysatay in cidinow adigaaga iyo 10 dugaaga ka shaqeynayaba ayaa maalinba maalinta ka hadduu sii go'ay arrinkaagu yahay waxaan kuugu baaqaynaa horta marka ugu horeysa arrinka shirkadaasi wuu ku qaawiyay waxa weeyaan cid allaale iyo cid waxa weeyaan maanta arrinkaasi uu ka qarsoon yahay iyo cid allaale iyo cid kugula socota gobolka saaxil aan maanta ku noolahay
waxa weeyaan cid kastoo dhigteeda ku soo dhacay arrinkaasi waxa laaliyo wixii hore hayay oo quba baa leeydi waxaan ka hadlaynaa shirkaddan la yidhaha Riyaan iyo shirkadaha kale imanayaba berberi waa meel loo sameeyo oo loo wada tartamaya sida loo dhan yahay yaa loogu tartamaya nin yaroo dalina meel uma sheegan kara magaalada uma oran karo aniga deegaan ma tiidin aanu sheegaynaa cid kasta oo mas'uul oo magaalada joogto inay dadka u sumatay Soomaaliland magaaladu haddii deegaanimadeedii la doonayo hore uu deegaankeeda dawso saaraa uu sheegi lahayn cid isaga lumiyo nooc doona ka yeelay Allahumma salli ala Muhammad waan li sheegaya kale berber maanta haddii deegaanimo la isku sheegto booram iyo bulxaar iyo bahashina deegaanimo la isku sheegan doono cabdirasaaq qaasin telefishinka saab berbera واو واسبوعك في عايز صاحبي wadkeeshi soomaa ما شاء الله صح ما عادش بسيط waxaan ku shubtay xilmo furan $10 baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 15 baad ku shuban kartaa 20 baad ku shuban kartaa